wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV ku soo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu door karona waxaa kamid ah Soomaaliland oo soo dhaweysay muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo beesha caalamka oo cunaqabatay u hanjabtay madaxda dawladda kadib muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo oo qaatay go'aan adag oo geesinimo leh madaxweyne Qoorqoor oo ay qasab ku tahay in laba midkood uu qaado xilli uu wajahayo cadaadis xooggan oo uga imaanaya Villa Soomaaliya mar kale kulanti haboon daawadayaal haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka sidoo kale like saar asxaabtaada u share garee fiidiyoga mahadsanidin Soomaaliland ayaa soo dhaweysay go'aankii muddo kordhinta ahaa ee loo sameeyay madaxweyne Farmaajo maamulka Soomaaliland ayaa si aad u soo dhaweeyay muddo kordhintii dhawaan xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u sameeyeen hay'adaha kala duwan ee dawladda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Soomaaliland ayaa si aad u soo dhaweeyay go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo dawladda federaalka Soomaaliya ugu kordhiyay waqtiga xildhibaano ka tirsan Soomaaliland ayaa carabka ku dhiftay in hogaamiyaal dawlad goboleedyo ay hor istaageen doorashadii ka dhici lahayd dalka isla markaana xildhibaanadu ay qaateen go'aan ay ku badbaadinayaan talaabadaasna ay taageerayaan ay qaranka ku badbaadinayeen waxa ay cadeeyeen xildhibaanadu in loo baahnaa in ajnabiga faragelintiisa laga feejignaado oo la qaado go'aan Soomaaliya u wanaagsan waxaanu taageeraynaa go'aanka ay qaateen baarlamaanka ayaa lagu yiri qoraallo ay soo saareen xildhibaano ka tirsan maamulka Soomaaliland xildhibaan Axmed oo kamid ah golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in xildhibaanada baarlamaanka maamulka Soomaaliland ay si aad ah u soo dhaweynayaan isla markaana ay taageerayaan muddo kordhintii loo sameeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa uu sheegay in madaxweynayaashii hore ee dalka soo maamulay ay yihiin kuwa iyagu caqabad ku ahaa dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana waxa uu ku eedeeyay in iyagu ay doonayeen in dalka ay u gacan galiyaan dawladda shisheeye haatanna ay dawladdu qaadatay go'aan loo baahnaa oo shacabka Soomaaliyeed dani ugu jirto maamulka Soomaaliland ayaa isagu mid doonayay inuu ka go'o Soomaaliya inteeda kale isla markaana si aad uga soo horjeedo go'aanada dawladda federaalka Soomaaliya waxaana si aad haatan loola yaabay sida maamulka Soomaaliland xildhibaanadeedu ay u soo dhaweeyeen muddo kordhinta dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeedu loo sameeyay iyadoona ay jirtay in maamulka Soomaaliland muddooyinkii dambe ay talaabooyin dhowr ah oo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday si aad kaga caroonaysay isla markaana ay kaga soo horjeeday waxaana arrin la yaab la noqotay in xildhibaanada maamulka Soomaaliland ay taageeraan go'aan ay qaadeen baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo si aad u xasuusano in ictiraafka ay doonayso Soomaaliland ay ka hortaagan tahay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka ayaa cunaqabateyn ugu hanjabtay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya kadib muddo kordhin loo sameeyay xubnaha beesha caalamka ayaa si aad kaga soo horjeestay muddo kordhin loo sameeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ay tilmaameen inay arrintaasi tahay arrin aan loo baahnayn dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in talaabada ay qaadeen xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay arrin laga xumaado isla markaana haddii aysan ka noqon oo muddo kordhinta loo sameeyay aysan ka laaban ay qaadi doonaan talaabo ka dhana Mareykanku waxa uu ku goodiyay in cunaqabateyn ay saari doonaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya haddii aysan ka noqonin talaabada ay qaadeen xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aysan dalka u jahayn doorasho xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa waxa uu si cad u sheegay in ay diideen muddo kordhinta aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu sameeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda haatan talada dalka Soomaaliya haysa isla markaana ay ugu baaqayaan madaxda dawladdu in ay aadaan gogosha wada hadalka si doorasho ay dalka uga dhacdo isla markaana loo xaliyo arrimaha khilaafka uu ka taagan yahay dhanka doorashada xogayaha Mareykanka ayaa xusay in muddo kordhinta ay wiiqayso nabadda iyo xasiloonida dalka ka jirta isla markaana ay doonayaan in la qabto doorasho hufan oo dalka ka dhacda dhankooda dawladda Ingiriiska ayaa iyaguna sheegay in ay ka fiirsanayaan la shaqeynta madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee muddo kordhinta sameystay iyadoona ugu baaqay in hogaamiyaasha dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladduba in si degdeg ah ay ugu laabtaan wada hadallada isla markaana la xaliyo arrimaha tabashooyinka iyo khilaafka uu ka taagan yahay dhanka doorashada wasiirka arrimaha Afrika ee Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba taageeri doonin talaabada xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay muddada ugu kordhiyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale jirtay dawlado dhowr ah kuwaas oo iyaguna qaadacay muddo kordhinta loo sameeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dhankooda midowga Yurub ayaa iyaguna waxa ay iska diideen muddo kordhintaasi loo sameeyay dawladda waxaana ay sheegeen in talaabo dheeri ah ay ka qaadi doonaan madaxda dawladda haddii aysan arrinkaasi ka laaban midowga Yurub ayaa waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya u sheegay
inuu ugu baaqayo in dib loogu laabto shirarkii wada hadallada ahaa ee lagu xalinayay arrimaha doorashooyinka isla markaana waxa ay tilmaameen in muhiim ay tahay in la dhameystiro heshiisyadii horey loo gaaray oo ay ka mid ahayd heshiiskii 17 Sebtembar. midowga Yurub ayaa intaasi ku daray in hogaamiyaasha dawladda ay ugu baaqayaan in si degdeg ah ay ugu noqdaan gogosha wada hadallada si xal looga gaaro muranka hareeyay arrimaha doorashooyinka, waxaana ay sheegeen in haatan aysan jirin wax ku qasbaya madaxda dawladdu in muddo kordhin ay sameystaan oo wada hadalladu iyo gogoshu ay yihiin kuwo furan oo loo baahan yahay in haatan la sii ambaqaado. xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa iyagu muddo kordhin 2 sano u sameeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda waa kadib kulan ay maalintii Isniinta ahayd yeesheen, waxaana ay tallaabadani ahayd mid si weyn hadal hayn badan u dhalisay isla markaana hogaamiyaasha dawlad goboleedyada qaarkood ay ka soo horjeesteen kuwa kalena ay taageereen. sidoo kale waxa ku kala aragti duwanaaday wadamada caalamka iyo midowga Yurub safiirada u jooga Soomaaliya, kuwaas oo iyagu qaarkood diiday isla markaana ka soo horjeestay in haatan la sameeyo muddo kordhin halkii la aadi lahaa doorasho toosa. madaxweyne Farmaajo ayaa qaaday go'aan geesinimo leh, waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xeer madaxweyne uu darajadii ciidanka kaga xayuubiyay taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Sareeye Gaas Saadaq Cumar Maxamed Saadaq John, kaasi oo ishoristaa ku sameeyay kulankii xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay yeelan lahaayeen. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si waafaqsan sharciga ciidamada qalabka sida waxa uu darajadii ciidanka kaga xayuubiyay Saadaq John, waxaana arintan ay noqotay mid si aad loo hadalhayay. taliya Saadaq John ayaa isagu waxa uu ku dhawaaqay in ay baajiyeen kulankii xildhibaanada ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya toddobaadkan ay yeesheen, waxaana daqiiqado kadib xilka qaadis ku sameeyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, iyadoona uu sababta uu taliya Saadaq John uu ku sheegay inuu ku joojinayo kulanka xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu sheegay inay damacsan yihiin in muddo kororsi ay sameystaan, arintaasi darteedna aysan suurtagalayn in haatan ay dhacdo. balse Saadaq John oo isagu laga qaaday xilka ayaa waxa uu haatan ku sugan yahay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, gurigiisa oo ku yaala isla markaana ay ku ilaalinayaan. tallaabada uu qaaday taliya Saadaq John ayaa waxa gabi ahaanba ka soo horjeestay sharci yaqaanada, waxaana ay tilmaameen in taliye uusan hor istaagi karin isla markaana uusan baaji karin kulan xildhibaanada baarlamaanka ay leeyihiin. madaxweyne Qoorqoor oo wajahaya cadaadis xooggan oo kaga imaanaya dawladda Federaalka Soomaaliya xilli ay u furan tahay in laba wado oo kaliya uu midkood qaado. madaxweynaha maamulka Galmudug iyo sidoo kale madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa khilaafkoodu uu yahay mid marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraya, waxaana haatan la sheegay in madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya ay wadaan abaabul ka dhan ah madaxweynaha maamulka Galmudug isla markaana ay socdaan kulamo dhowr ah oo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug dawladda Federaalka Soomaaliya ay ka bilowday, isla markaana la isugu yeerayo xildhibaano kala duwan oo mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka Galmudug wada. madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Galmudug khilaafkooda ayaa waxa uu soo ifbaxay kadib markii uu madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu markaasi sheegay in marnaba uusan taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo madaxda dawladda oo waqtigoodu u dhamaaday, waxaana dhacday in madaxda dawladda muddo kordhin 2 sano loo sameeyay, arintaas oo wali uusan madaxweynaha maamulka Galmudug ka hadlin isla markaana uu diiday in markaasi uu taageero. khilaafka ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa uu ahaa mid sii kordhayay, waxaana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug ay kulamo kala duwan ka wadaan madaxweynaha maamulka Galmudug isla markaana ay doonayaan in xilka ay kaga tuuraan. gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Galmudug ayaa isagu waxa uu markaasi wadaa galaangal kala duwan oo uu la sameynayo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi Galmudug, isagoo oona la sheegay in uu markaasi ka dab qaadanayo madaxtooyada Villa Soomaaliya isla markaana uu doonayo in madaxweynaha maamulka Galmudug uu xilka qaadis ku sameeyo. xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa la xaqiijiyay in gudoomiyaha ay haatan la shirayaan iyo gudoomiye ku-xigeenka isla markaana ay wadaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulka Galmudug oo isagu ka hor yimid madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya. madaxweyne Qoorqoor ayaa haatan waxa uu furan go'aano adag oo laba ah in uu taageero madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya iyo inuu markaasi ka fiirsado go'aankiisa ku aadan sida dawladda u taageeri lahaa isla markaana uu fiiriyo caqabada kaga imaan karta haddii madaxda dawladda Federaalka Soomaaliya oo muddo kordhin sameystay lagu soo rogo ganaaxa in cunaqabatayn la saaro.
waxaana madaxweynuhu uu yahay mid laba daran mid dooro ay haatan hor taalo. madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaana haatan ka fiirsanaya go'aanka uu qaadanayo, waxaana jira in cadaadis xoogan uu haatan ka dareemayo dhanka madaxtooyada Villa Soomaaliya ee dalka looga arrimiyo. gudaana daawadayaal warkaad kala socoteen Warsida TV waa naga inta nabadgelyo.